War degdeg ah waxaa la ogaaday awoodaha ay kala haystaan labadan wadan Ruushka iyo Ukraine. Warbixintan oo ka soo xiganay TV-ga caalamiga ee WION ayaa tilmaamaya awoodaha difaac ee ay kala haystaan wadamada Ukraine iyo Ruushka. Ruushka difaaca qarankiisa wuxuu ku bixiyaa qarash dhan 61.7 bilyan, halka Ukraine difaaca qaranka ay ku bixiso adduun dhan 5.9 bilyan. Ruushka wuxuu haystaa ciidamadiisa u shaqeeya ama taqaanayo hadda toos u shaqeeya 900,000 oo ciidamo ah ayuu leeyahay. Ukraine halka ay ka leedahay 209,000 oo ciidan. Sidoo kale ciidamada kaydka ee Ruushka waa 2 milyan. Ukraine ciidamada kaydka waxay gaarayaan 900,000. Haddii aan gaarno dhinaca hubka artilleriga, dhinaca Ruushka wuxuu haystaa 7,571, halka artilleriga Ukraine ay haysto 2,040. Gaadiidka dagaalka ee Ruushka uu haysto waa 30,122. Sidoo kale gaadiidka Ukraine ay haystaan waa 12,303. Haddii aan eegno dhinaca taangiyada, Ruushka wuxuu haystaa 12,420, Ukraine waxay haystaa 2,596. Helikobtarada dagaalka, Ruushka wuxuu haystaa 544, halka Ukraine ay haysto 34. Diyaaradaha dagaalka, Ruushka wuxuu haystaa 1,511, halka Ukraine ay haysto 98. Waxaa xusid mudan in labadan awood ay kala duwan yihiin oo awoodda Ruushku ay sareyso, balse haddana wadanka Ukraine tani kama reebin in uu diyaar garoob xooggan ay ugu jiraan. Waayadan dambe colaadda Ukraine iyo Ruushka ka dhaxaysa ayaa aad u sii kordhayso, oo dagaal inuu qarxo ay qarka u saaran tahay, kaasoo ka dhaxeeya labada wadan. Balse Mareykanka ayaa ku hanjabay in uu cunaqabatayn saari doono haddii Ruushka uu weeraro Ukraine. Wixii ka soo kordhina warbixinadeena dambe ayaan idinkugu soo gudbin doonaa. Waa mahadsantihiin.